qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro inta cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiif inuu jiro walaalka cunug yar oo baahi daraadeed u ooynayo inuu meel joogo fadhiyo ogaw qalbigaaga ku jirto markaas waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyaasha aabbayaasha Soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraac iyo casho heli karo iskuul quraac u dirsan karo ogow ilmahaaga ilmo lamida oo qaday quraac casho heli karo maxaan ku leeyahay iskuulna aan aadayn dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan u baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyaan waxay dawladdu waxay priority u ah number 2 ah amniga dalka laakiin dadkaani bariya amniga la soo doono noloshoodu ma gaartee maanta u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyay ay maanta u baahan yihiin meel kasta ay joogaan baydhabo dhismaha dalka oo dhan ay joogaan meel kasta ay joogaan oo ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii markaad meelaha qurxan joogtaan markaad muxuu ahay McDonald's iyo Starbucks aad fadhidaan oo koobka kafeega qaaliga ama xabadda muxuu ahay sandwichka oo qaaliga aad cunayso xasuuso wiil walaalka iyo cunug yar oo adeer u tahay ama tu noqon karta ama hooyo lamida hooyada iyo walaasha in meeshaan ku dhibaataysan ma tadaddaraysanay halkiyo on ka qaba McDonald's iyo maxaan ku leeyahay Starbucks kafeega laga cabaa in joojiyo wixii lagu bixi lahaa muddo kooban waaye abaartu waa dhamaanay waana laga baxay in waxaas soo gaarsiiyo guddiga deeqaha qaranka dawladdu ay magacaawdo ama la soo gaarsiiyo kuwa abaaraha ee dawlad goboleedyada annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis inta karaankeena iyo xoogna isugu geyno waxa dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixi inay soo gaaraan